kusoo dhawaada baraawe iyo muufo baraawe iyo malaay. muufo baraawe, caano baraawe iyo koofi baraawe waa magaalada keliya ee magaceeda ku lifaaqan waxa ay soo saarto, waana magaalo xeebeed aad u qurxoon. warbixinteeduna ma qusayso taariikhda magaalada, laakiin waxaan baran doonaa mid ka mid ah cunooyinka aadka loogu isticmaalo deegaankan iyo waxyaabaha laga sameeyo. dadyowga barawaaniga ayaa cunooyinka ay dhaqan ahaan u isticmaalaan waxaa ka mid ah muufo baraawe oo ka duwan muufooyinka kale ay isticmaalaan Soomaalida. muufadani ayaa lagu magacaabaa muufo baraawe oo loogu magac daray magaca deegaanka. reer baraawe ayaa muddooyin aad u badan isticmaalayay cunista muufo baraawe, welina isticmaalo, waxayna sidoo kale martida ku sooraan muufo baraawe iyo kalluun, sida ay telefishinka Universal u sheegeen qaar ka mid ah dadyowga barawaaniga. Salamu Zakaria Munia Mohamed Nikon Tiamini na isa china kuja mandra nansi gemani inshallah china kanamba gemani kwa china kuja mandra nansi chiko karka china kanbokhete kar chibokheto ni TV yitu ya Universal TV china mashallah china kuja mandra nansi na chahi na kila chino inshallah. muufo baraawe ana lagu soo koriye haween walba ku casheena maka maarno oo muufada baraawe iyo malaayga aan ku casheeno haween ilaahay keeno waa ku casheena asoo muufadaas aan cunin maba seexano. muufo baraawe waxay ka mid tahay cuntooyinka laga sameeyo dalagyada ka soo baxa dhulka Soomaalida oo ay ugu horeyso galeedu. habka loo sameeyo muufo baraawe, galeeda waxay martaa heerar kala duwan. galeeda marka ugu horeyso waxaa lagu dhaqaa biyo, waxaa loo gudbiyaa qayb ka mid ah mishiinka lagu jajabiyo galeeda si loogu diyaariyo habka haadinta masaafta gacanta si looga saaro baalka. muddo yar kadib waxaa loo gudbiyaa qaybta labaad ee soo saarta cajiinka. Sahro Abuukar Cali, Sahro Amiyaa, oo ka mid ah dadyowga barawaaniga oo aadka ugu takhasustay sameynta iyo karinta muufo baraawe, ayaa iiga faalootay. muufo baraawe dadka qaar magaciisa yaqaanin, dadka qaar asaga yaqaanin, dadka qaar sida loo cuno yaqaan, dadka qaar laakiin ma yaqaanin sida loo sameeyo ama wax uu ka sameeyay ama wax uu ka kooban yahay. muufo baraawe waxaa laga sameeyaa bur iyo cajiin. burkii cajiinta oo burka u badan yahay cajiinta loo yareynayo, waxaa kala lagu daraa sokor iyo cusbo. sokortii cusbada sokorta loo badinayo, cusbada far iyo suu lagu daraa loo yareynayo. markaan ka hadalno sida loo qaso muufada, intaas marka la isku daro biyo ayaa lagu darsadaa, si fiican loo qasaa ama loo cajiimiyaa. marka loo cajiimiyo ka bacdi ma laga dhigayo sida rootiga oo kale, lama adkeeyo mana la jilciyo sida canjeerada camal, waa dhexdhexaad. markii saas loo diyaarsado 30 daqiiq ayaa meel la dhigaa, way qamiirtaa ama way fuurtaa, qofku soo yaqaan waa la qamiiriyaa. 30 daqiiq kadib muufadii way ku qamiiraysaa, ka bacdi waa la duwaa. marka la duwo kadib waa muufo diyaarsan oo la cuni karo. dadka qaar maxay isweydiinayaan muufo baraawe marka la hor dhigo maxay kor ceyrin ugu tahay. xaqiiqatan muufo baraawe marka la duwo lama gaduudiyo, kor waa cadaan, hoos un baa laga gaduudiyaa. dadka marka ceyrin u maleena, laakiin maahan ceyrin, waa muufo aad iyo aad u macaan badan. haddaynu nahay reer baraawe waxaan dhaqan anaga u leenahay iyo hiddo, martida noo timaado inaan ku soorno muufo baraawe iyo malaay. sida maqaayadaha magaalada ku yaaliin camal baraawe, muufo baraawe lagama waayo, waa la gadaa habeen iyo maalin ayadoo diyaarsan. dadka qaar waxay aaminsan muufo baraawe sameystaa si kale inay tahay, inay u sameystaan ama si kale inay u sameeyaan bur iyo leewad inay isku daraan muufo baraawe inay sameeyaan. laakiin muufo baraawe ma way jilaan dadaa jira cajiinta iyo wixii markay ku darsan haddana leewad ay ku daraan. ma ahan muufo baraawe saxda. muufo baraawe saxda anaga aan naqaan waa tan hadda anaga idin tusi doono. dadka ku nool magaalada baraawe ayaa inta badan isticmaala muufo baraawe. muufada ayaa ah cuntada keliya ee loo sameeyey hees ka mid ah heesaha Soomaalida. Ismaan Aweys Baxar, telefishinka caalamiga
Universal TV magaalada Baraawe.